السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذا سلامية مقعد واحد فهد شاكر وحنا عينين سكاري البادية كي مودا كيو قربها سوكولي ولبا سوكولي وينان فدان كا waxaa xiiseeyaa ama wax badan ka qoraan muddo ah sheekooyin iyo qisooyin fara badan oo ku saabsan dhalinyarada Soomaalida ah ee qurbaha soo galay ama wadamada kale ee Asia jaamacadaha waaday marka waxyaabo yar badan qoruriya marka in muddo uga wada laakiin insha Allah halka barbara ku soo bandhigo maanta sheekada ugu horeysa inoo hayo waa sheeko runtii aynu wax badan ka baran karno wax badan ka tagi karno oo ku saabsan nin la Cabdiqani oo kamid ah dhalinyarada marka qurbaha soo galay weeyaan marka ka bilaabo doona insha Allah iyo soo dhawaada inaan hadalka badan ya badinin ninka waxa la Cabdiqani wuxuu kamid ahaa dhalinyarada Soomaalida ee qurbaha soo galay dhowr sano ka hor ugu dambeyn wuxuu yimi waddanka la yiraahdo Australia ayuu muddo joogay waxa uu Australia marka run laga hadlo wadamada Yurub ugu fiican weeyaan aad u wanaagsan shaqooyinka fiican laga helo laakiin shaqada laftigeeda waxa ku xidhan sharci qofku markuu sharciga uu helo ayuu shaqeynaya badan kale wadamada badankooduna qofka ilo sharci helo ma shaqeyn karo waddanka Jarmalka inta badan dadku ila shaqeeyaan marka ninka Cabdiqani bila shaqo noqday raguna markuu waxoogaa la isku loo diray waxoogaa uu muddo la wadkeena joogo ragu bila shaqo noqdo waxoogaa ragu markaas ragu uu fakara ragu kaliya ma cadu markaa ma fakaro sida markaas wala inta bila qofku noqdo bila shid ama qofku noqdo bisaar qabato xisaabaad lacag u sameeysan ninkii adigu muddo uu buu raadiyo subax kasta uu kala shaqo raadiya wax uu la wadiinay wax weeyaan mas'ata waraaqihii sharciga mas'ata waraaqdii shaqada muu haysan ugu dambeyn muddo badan ka bacd sanad ka bacd wuxuu helay sharciga baa soo dhacay isla markiiba qolada ajinsiyada inta ka shaqaalaysiin ayuu la xiriiray markaa luqadiina waxoogaa waan ka aqaana shaqaan doonayay shaqaa loo soo helay dhowr sano ka bacdi shaqadii buu bilaabo qolooyin buu shaqo la bilaabay adigu ka shaqeeyay adigu boostooyinka waxyaabaha la xiriirayay boostooyinka guryaha la dhigay alaabahaas marka sida caadigaana qofku markuu full time shaqeystay saac shaqeynayo qof kasta dadku waxay leeyahay shaqadu waxay leeyahay hal saac oo break oo nasasho ah ama qada ah ama 30 mirir ama 40 mirir marba wax ku xirantay sida loo shaqeeyo laakiin markasta waxa jira break baa jiro oo break time qofku u baxayo soo dhameysanayo ninka Cabdiqani break time kiisa marka cuntadii waxa ku gaarsiiyay wuxuu yara kala salaad yara galaaw winarno Europe tan iyo wax lagu qabowga iyo waqtiga ay soo dalaaleego qofku waa inuu casarkii doorku ay saarba salaadaha uu galaaw inta ba ninka booska meesha ka chefka ka aba daba galo ninka ku dhaw dhageysaniyo meesha qadan ku fasaxnay salaad kuma fasaxin salaadahaagan guriga ku tuko laakiin halkan yada shaqo waa meel shaqaalaha weeyaan marka salaadaha lagu ma baahna guriga ku tuko hadana maalin kale dhor shaka bacdi hadana yara sameey hadana uu la hadlo ninka Cabdiqani salaadiisuna waa muhiim shaqada waa iska cusubta adduunyada oo tahay aslaati fadada shaqadeeda nimanka gaalada ana hadda leedahay shaqo qorayo shaqada go move waa shaqada iskaga tago shaqada wad ka tagaysaa niman adigu caraba la yar shaqeynay ku carabta ku niyo arrinta sare jirtay ka warno inuu carabtu noqdo xun maaha laakiin waxoogaa wada laga fiican yahay anigu shakhsi laakiin wada wanaagsan laakiin horto inta laakiin qurbaha aynu ku aragnay dad fiican maaha waxay ku dhaheen niyo dhigeysaniyo isna wuxuu ka turmaayay nimanka carabta ay diin ku fiican yihiin waxoogaa ay la ninka dalaha la oranayaan diin baan leenahay waa kaaso taageero ka rabay garab buu ka rabay marka waxay ku dhaheen baa iyaguna anagu ma tukananiyo we guriga ka magararsa ku soo dhamaysaa hawlahaaga ninka Cabdiqani hawshu waxoogaa uu ku cusub warniyo hadhe adduunya in ilaahay isku seegindee salaadaha kana la dhinaca ka dhigay marka sidoo ogsoonay wax weeyaan qof kasta oo meel jooga ama magaalo jooga waxa jira dad kale Soomaali baa jirta oo la degan qof kasta oo inaga mid ah qurbaha jooga ama Afrika jooga ama wadamada reer galbeedka jooga waxa jira qof baa jira rol model oo wax weydiinaya markaas ku xukuraad ka yiraahdo sida qofkaas ka aqoon badan oo hebel waxa maxaa sameeya even amba waan leeyahay dad badan wax ka weydiin marka wax kale way waxyaabo fara badan wuxuu ay markaa qofkii uu ahaa modelka uu ahaa Soomaaliga meesha joogay oo saaxiibadiis kamid aslaha oo dadka waddanka ka soo horeeyay waana wax lagu ka tala bixinaya marka waa ku ma fiicantay saaxiibo ma sha Allah wani saaxiibo ni wanigi dii muddo badan shaqada warkiga wad haysaa iyo marka milyan baa shaqo ka bilaabay ninkii shaqada lahaa wuxuu igu yiri niyo meesha salaad lama ogol waqtiga break-aan salaad lama ogol maxaa sameeyaa marka isna wuxuu ku wani madaa shaqada iska cusubtay in guriga israaciniyo niyada baa muhiim ah guriga israaciniyo meesha waxba ku tukan سريع قلنا هسكو بعينانيو
sidii buu iska wadaniyo raguna iyo dadkuba rag iyo dumar baa u jeedaaye dad baa iska jira mataqaanaa iyo horta dadka lacagta wada jeceliyin shaqada wada jeceliyin lacagta dadka wada jeceliyin haddana adduunyada ahba haddana dadka qalab garanaysa haddana xagga ilaahay ay u tahay priority number 1 oo iyagu xoogga saaraya ninkan si noqotaba markuu bishii kooda lacagta qaatay buu ku yiri niyo hadda salaadaha iyo ogoleen ma tagay shaqadii muu tagay meel soo xukulan maxaa dhacay shaqadii ma dhiman shaqadii qolada jidka la soo hadlo xukulan inuu meesha salaadaha lama ogola aniga salaadaha la ogoleen ma tagayniyo marka xukulan way hadda shaqada imka aad gelin bay ku dhaheen xoog shaqa imka ma yahay shaqa kale may laakiin shaqa kale inuu soo raadin noqonaysa marka wad naga warsugaysa ninkii istay wuxuu islaa shaqada laba saddex bilood baad sugaysaa isla markiiba email booster wuxuu ku war shaqada ku diyaar ku hayna salaadaha waa lagu geliya ninkii ma isla magaaladii Fiyaano degan caasimada isla meel ka fogaan shaqadii buu ka helay oo ka raaxo wanaagsan oo security oo heer sare oo tii ugu dhaqaale badan marka Cabdiqaadir arrintu gool soo kordhiyay fikradiisa waxay shaqada u soo socodsiinay waxay inuu lahaa markastaba shaqadan iyo shaqooyinka shaqaysan markasta ay noqon wax ka soo horjeedi kara oo mataqaana salaadihiin waxa weeyaan salaadihiin waxaan noqon number 1 meelo gumeysi iyo meelo mataqaana salaadihiin nolkida diidayada iyana noqonin ha noqoto salaadihiin number 1 iyo akhiradeenu taas arrintu gool Cabdiqaadir soo kordhiyay taas ahayd waxna filayana wax badan dabada ka teen karno haduu fiigu ila cajiibay insha Allah subscribe saara wiigiiba dhowr iyo wixii marba waqti leeyahay insha Allah soo gudbin doonaa. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.